maxkamadda ayaa uu ka horqirtay in xaaskiisa oo lagu magacaabayay marxuumad Maryam Ismaaciil uu dilay kadib markii ay guriga uga ceyrisay in uu ku dhacay cudurka COVID-19 ayna ku qaylisay si uu ugu fogaado iyada iyo carruur kale oo ay nin kale hore ay u dhashay. King 252 kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janalka King 252 ku soo dhawaada gacmo furan. haddii aad maanta nagu soo biirtay fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto warbixinada xiga haddii ilaahay raalli ka noqdo. asxaabtii hore noola joogana haddii aad ka mid tahay oo aad ku mahadsan tahay la joogistaada. maxkamad ku taala magaalada London ayaa xabsi daa'in ku riday muwaadin Soomaali British ah kaasoo bishii Abriil ee sanadkii idlaaday xaaskiisa ku dilay waqooyiga magaalada London. ninkani oo lagu magacaabo Xuseen Yuusuf Cigaal waa 66 sano jir ahaana darawal basaska wada. maxkamadda ayaa uu ka horqirtay in xaaskiisa oo lagu magacaabayay marxuumad Maryam Ismaaciil uu dilay kadib markii ay guriga uga ceyrisay in uu ku dhacay cudurka COVID-19 ayna ku qaylisay si uu ugu fogaado iyada iyo carruur kale oo ay nin kale hore ay u dhashay. meydka haweeneydani oo 57 sano jir ahayd ayaa laga helay fadhiga gurigeeda iyadoo lagu daboolay bustaha sida ay booliska maxkamadda ka hor cadeeyeen. dhanka kale baaritaan lagu sameeyey meydka marxuumaddaasi ayaa la shaaciyey in aysan u geeriyoonin in ay qabtay xanuunka COVID-19 oo looga shakisnaa maadaama geerideeda joogta keliya aysan geysan karin, balse ugu dambeyntii dhakhaatiirta waxaa u caddaatay in haweeneydaas ay u geeriyootay nabarradii uu u geystay saygeeda. waxaa maxkamadda la sheegay in ilaa iyo 70 dhaawac ah oo kala duwanaa lagu arkay jirka haweeneydaas iyadoona dhaawacyada ay u badnaayeen dhanka xabadka iyo madaxa. xuseen ayaa maxkamadda horteeda ku dooday in uu isdifaacayay isla markaana cudurkii ku dhacay uu jahwareeriyey kuna riday isbeddel maskaxeed taasoo keentay geerida marxuumadda, balse garsooraha maxkamadda Mark Lucraft ayaa ku gacan seeray una sheegay Xuseen sheegashada Xuseen isaga uu u sheegay in baaritaanka maskaxeed ee la sameeyey ay muujinayso in Xuseen maskaxdiisu ay fiyoobeed xilligaasi. sababta kugu qaaday dilka adiga uun ayaa og, wax yar ka hor iyo kadibba xitaa noloshaada caadiga ahayd ayaa iska sii wadatay, wax muruga ah maadan ka muujin ama shalay ah dilka aad u geysatay xaaskaaga. waxaa ii muuqata inaad ahayd qof cara badan ka muuqatay markii dilka uu geysanayay, sababo kasta ha ku timaadee waxaa ii muuqata in aad ulakac u dishay xaaskaada ayuu yidhi garsooraha. garsooraha ayaa sidoo kale ku gacan seeray sheegashada Xuseen ay ahayd in uu isdifaacayay maadaama ninkani dhaawaca iyo dilkaasi geystay jirkiisa aanan laga helin nabarro muujinaya in uu isdifaacayay ama dhibaato loo geysanayay xilligii uu dilayay haweeneydiisii.